taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa tababar u soo xiray saraakiil ka tirsan guutada 16aad ee kumaadooska danab oo muddo tababar ku qaadanayay xerada tababarka dugsiga General Dhagabadan ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage, taliyaha guud ee ciidamada midowga Yurub General Sansoni, taliyaha dugsiga General Dhagabadan General Maxamed Maxamuud Saney. saraakiisha tababarka dhamaystay ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay ku barteen muddadii ay tababarkaasi ay qaadanayeen. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saraakiisha tababarka dhamaystay kula dardaarmay in aqoontii ay barteen ay uga faa'iideeyaan dalkooda iyo dadkooda. gabagabada munaasabadda ayaa taliyuhu waxa uu guddoonsiiyey shahaadooyin qaar ka mid ah saraakiishii tababarka dhamaystay. dhinaca kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Saraakiil guutada waa Yuusuf Raage ayaa kormeeray taliska guutada 16aad ee kumaadooska danab, isagoona warbixin ka dhageystay taliyaha guutada 16aad ee ciidanka kumaadooska danab gaashaanle dhexe Axmed Cabdullaahi Nuur Beeryare iyo saraakiisha ka howlgasha xafiiska taliska guutada.